sharaf weyn bay tahay inaynu isugu nimaadno shirweynahan aynu ku daah furayno tubta Soomaaliya ee adeega caafimaad oo ay helaan muwaadiniinta Soomaaliya waxay guul u tahay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka waxaan ugu hambalyeeynaa Wasaaradda Caafimaadka wasiirka caafimaadka iyo xubnaha golaha wasiirada oo ka shaqeeya tubta arrimaha bulshada oo si weyn isaga xil saaray in maanta aynu soo gaadhno meel aynu daah furno tubta cusub oo u adeegaysa waxaanu ka shaqeynaa fartoodo waaweyn u adeegaysa adeega caafimaad inay helaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo caalami ah waxaan ku diirsaday in aynu guul ka gaadhnay dhowr xanuun oo dilaa ah oo jiray Soomaaliya taagta aynu leenahayna meel fiican ay ka marayso booliyada kamid ah oo doctorku hadda ka hadlay kalooraha TB-da HIV/AIDS iyo xanuunada kale iyagana aynu rabno inaynu la tacaalnay hab nololeedku uu keeno ama sida qofku u nool yahay sida dhiigkarka macaanka faaliga iyo waxyaabaha la halmaala haddii aynu gacmaha isqabsano saaxiibadeena ee nala shaqeeya iyo inaga iyo shacab iyo dawladba horumar baynu ka gaari karnaa inaynu daryeelno muwaadiniinteena adeega caafimaadku waa xaq dastuuri ah oo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed leeyahay waxaan leeyahay hambalyo tubtuna waxay noogu furan tahay si rasmi ah in Soomaaliya leedahay tub iyada u gaar ah oo ka turjumaysa duruufaheeda iyo waayaheeda la sajaan qaadaysa duruufaha caalamiga ah oo jira istaantarka caalamkana raacsan u adeegaysa muwaadiniinta Soomaaliyeed waa mahadsantihiin